madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa maanta waxay ku wajahan yihiin magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug waxaana lagu wadaa in shirka Dhuusamareeb 3 uu isla maanta ka furmo magaaladaasi. Warsoo saareen Cali Ibraahim Cabdullaahi ayaa faahfaahinay warkan. madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa maanta waxaa la filayaa inay gaaraan magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. waxaa saacadaha soo socda lagu wadaa in shir u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyada uu ka furmo magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. shalay magaalada Dhuusamareeb waxaa gaaray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagareen. wufuudan maanta la filayo inay tagaan magaalada Dhuusamareeb ayaa qorshuhu waxa uu yahay inay ka qayb galaan shirka wejigiisa saddexaad oo maanta ka furmaya magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. wararkii ugu dambeeyay ee laga helayo magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa ay ku waramayaan in wufuudda sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya ku sugan magaalada Dhuusamareeb uu kulan oo la qaatay isla markaana uu kala hadlayay arrinta ku aadan shirka la filayo inuu ka furmo magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. shirkan ayaa waxaa looga hadlayaa nooca doorasho ee dalka ka dhici karta maadaama ay horay ay ku ballameen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyada ka jira dalka. dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhig ciidamada xoogga dalku ay ku leeyihiin degmada Buurdhuube ee gobolka Gedo sida uu ku waramayo wariyahana Cali Cilmi Salaad. dagaal culus oo socday in ka badan 2 saac ayaa xalay waxa uu degmada Buurdhuube ee gobolka Gedo ku dhexmaray ciidamada xoogga dalka iyo dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab. dagaalka ayaa si gaar ah uga dhacay buundada degmada oo fariisin ay ku leeyihiin ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya. waxa uu na bilowday kadib markii Al-Shabaab ay weerareen fariisinka ciidamada. dhinacyada dagaalamaya ayaa isku adeegsaday hub culus waxaana la ogeyn haddii uu jiro khasaaraha soo kala gaaray maadaama ay ahayd xilli habeen ah oo aysan goobta joogin cid ka madax bannaan. gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada Buurdhuube ayaa sheegay in ay ka warayeen weerarka Buurdhuube ay ku qaadeen Al-Shabaab ciidamadana ay iska caabiyeen sida uu sheegay. kooxaha nabadiidka ee ugus waxay soo weerareen buundada Buurdhuube magaalada dhanka bari bay ka soo weerareen buundada oo qaybta ay magaalada dhinaca kale u tahay. saad ogtahay buundada Buurdhuube afarta dhinac waxaa ka jiro beero aseedooyina beerahay soo dhexgaleen. ciidamada xoogga dalkana informationkooda iyo habka ay ku soo socdaan intaba waa weyn diyaar baan u ahayn. waana iska celinay waana iska caabinay wax ilaahay abuurtay oo ciidanka iyaga iyo buundadii gaaray midna ma jiraan alxamdulilah. ayagana waa jabeen. waa kooxo ma garanaysaa argagax iyo ka samaysan iyo isku day mooyaane tabar uma jirto. waxaa saaka degan degmada Buurdhuube waxaana jooga ciidamada militariga Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya oo markii horeba ku sugnaa. sidaan oo kale ayaa xilliye habeen ah dhowr jeer waxay Al-Shabaab weerareen fariisimaha ciidamada dawladda ay ku leeyihiin gobolka Gedo. dhinaca kale qarax inta badan laga maqlay guud ahaan xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa xalay ka dhacay xaafada Faanoole gaar ahaan waaxda Imbatoriyada. qaraxan ayaa lagu xiray guri dabaq ah oo ka koobnaa 2 biyaano oo lahaa ganacsade caan ka ah deegaanada Jubbaland oo lagu magacaabo Cabdullaahi Koore. mana jirto wax khasaare nafeed ah ee uu geystay qaraxaas waxaase uu burburiyay qaybo ka mid ah guriga. sida ay wararka sheegayaan xilliga uu qaraxa ka dhacay guriga ayaa waxa uu ahaa mid cidla ah mana jirto muddooyinkii dambe cid ku nooleed. wararka ayaa intaa ku daraya in ganacsadahan uu maalmo ka hor ka biyadiiday lacag canshuur ah oo ay ka dalbadeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. ma jirto wax war ah oo ka soo baxay Al-Shabaab iyo ganacsadaha gurigiisa la weeraray intaba. dawladda Soomaaliya ayaa qalab haga maraakiibta ka hirgelisay dekedda Muqdisho. Xanad Maxamed Karaama ayaa faahfaahinay warkan. siyaaya ra'iisul wasaaraha dalka Maadi Maxamed Guulid Qadar ayaa xariga ka jiray musawica hagaha maraakiibta ku soo xiranaysa dekedda weyn ee magaalada Muqdisho. musawican iftiinkiisa laga arko meel fog ayaa howlwadanada maraakiibta ka saacidi doona inay gartaan tilaabada ay u jirto dekedda magaalada Muqdisho iyo inay si fudud ku soo xirtaan.
siyaaya ra'iisul wasaaraha dalka Mahdi Maxamed Guuled Qadar ayaa xarig jarka kadib warbaahinta la hadlay isagoo sheegay in ahmiyad weyn u tahay dawladda federaalka Soomaaliya inay dib u soo nooleyso musawacan oo laga hagi doono maraakiibta ku soo xirata magaalada Muqdisho. Dhanka kale kusimaha ra'iisul wasaaraha dalka ayaa sheegay in musawacan hormuud u noqon doono in uu kala hago maraakiibta ku soo xirata magaalada Muqdisho. runaantii waxay noo tahay farxad iyo bogaadin weyn inaynu dah furno musawaca hagaha maraakiibta isaga gooshaysa dunida daafaheeda khaasatan ku soo hiranaysa dekedeena marka ay ama dabaylo dhacaan ama mawjadaha baddu ay qaataan doonyaha iyo maraakiibta kaleba inay ku soo hirtaan dekeda si ay ugu soo xidhaan oo uu hago oo uu tilmaamo sida laga sheekeeyay waxa taariikh dheer ayuu leeyahay oo ku siman 100 sanadood inaynu maanta dib u dah furno oo technology-ga kale ee casriga ah iyadoo la isticmaalayo haddana muhiim yahay isticmaalkiisu oo lagu soo hirto oo uu noqdo iftiin ifaayo oo kala hagaya hawlihii maraakiibta ee ay wasaaradda iyo dawladda ku hawlanayd waxa weeye tallaabo hore aan u qaadnay oo dhinaca horumarka dekedaheena qayb weyn ka ah khaasatan degeda magaalada Xamar waan ugu hambalyeynaya wasiirka iyo hawlwaneedada wasaaradda iyo ciidamada badda dawladnimada dib u dhiskeedu waa taa maalinba wax ay noogu soo kordhayaan taariikhdii aan lahayn dib aynu u soo ceshanayno dawladnimadii dib u kabayno waxyaabihii imkaaniyaadka ahaa ee dawladnimada kabaay dhinacyadeeda kala duwan maalinba mid aynu dib u daahfurayno haddaynu halkaa kaga sii wadno horumar waa gaari karnaa dalkeenina dib waa u yeeleli karnaa. Mahdi Maxamed Guuled Qadar kusimaha ra'iisul wasaaraha dalka ayaa maalmihii daba xariga ka jirayay mashaariic kala duwan oo hirgelisay dawladda federaalka Soomaaliya iyadoona xarig jarka musawacan uu ku soo aadayo xilli dhawaan kusimaha ra'iisul wasaaraha dalka oo xariga ka jiray macadka daraasaadka amniga iyo sidoo kale goobo kale. dagaal culus oo u dhaxeeya al-shabaab iyo ciidamada Jubbaland ayaa ka dhacay gobolka Jubbada Hoose sida uu ku waramayo wariyaheena Cabdimajiid Cabaas Aadan oo ku sugan magaalada Kismaayo. ciidamada daraawiishta ee dawlad goboleedka Jubbaland iyo dagaalamayaasha kooxda al-shabaab ayaa waxa uu iska horimaad ku dhex maray deegaano markaasi dhaca dhinaca waqooyiga magaalada Kismaayo iyo sidoo kale dhinaca galbeed ee magaalada Kismaayo waxaana markaa iska horimaadkan la soo warinaya in ay ka dhasheen khasaaro markaasi soo kala gaaray labada dhinac. hase yeeshee wararkii ugu dambeeyay inuu ka helino deegaanada galbeedka iyo waqooyiga magaalada Kismaayo gaar ahaan deegaanada Janaac Cabdalle iyo Bulguduud ayaa waxa ay sheegayaan in saacadihii aynu ka soo gudubnay halkaasi weeraro qorshaysan ay ciidamada Jubbaland ay ka fuliyeen waxaana markaa taliyaha ciidamada ee Jubbaland ee daraawiishta aaga deegaanka Bulguduud uu sheegay in dagaalamayaal ka tirsan kooxda al-shabaab ay markaa weerarkaasi ku gaarsiiyeen khasaaro markaa uu sheegay walow al-shabaab dhankoodu aysan weli ka hadlin. hase yeeshee deegaanadaasi dhaca waqooyiga iyo galbeedka magaalada Kismaayo ee kala ah deegaanka Bulguduud iyo Janaac Cabdalle ayaa waxa saacadihii ugu dambeeyay markaa ka dhacay dagaal kooban oo halkaasi ku dhex maray dagaalamayaasha kooxda al-shabaab iyo ciidamada dawlad goboleedka Jubbaland oo muddooyinkii la soo dhaafay ku sugnaa deegaanka Janaac Cabdalle ee markaa dhaca galbeedka magaalada Kismaayo 60 kilomitirna dhinaca galbeedka ka beegan magaalada Kismaayo. hase yeeshee wararkii ugu dambeeyay oo madax bannaan oo ay helayso idaacadda Kulmiya ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada Jubbaland ee ku sugan deegaanada Janaac Cabdalle iyo Bulguduud ay wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka walow inta badan al-shabaab ay halkaasi iyaguna dhaqdhaqaaq ay ka wadaan dhankooda. hase yeeshee dadka deegaanadaasi ku sugan oo aan xiriiro kala duwan la sameynay ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen in guud ahaanba halkaasi ay isaga barakaceen maadaama ay tahay furin dagaal oo ay ku hardamayaan dagaalamayaasha kooxda al-shabaab iyo sidoo kale ciidamada daraawiishta ee dawlad goboleedka Jubbaland. inta badan ciidamada Jubbaland ayaa waxa ay muddooyinkii aynu ka soo gudubnay howlgallo markaasi dhul ballaarsi ay ka wadeen deegaanada dhaca waqooyiga iyo galbeedka magaalada Kismaayo waxaana ciidamada Jubbaland muddo 7 ay ku sugan yihiin deegaanka Janaac Cabdalle oo ah goob istiraatiiji ah oo al-shabaab ay gacanta ku hayeen. Cabdilmajiid Cabaas Aadan, Fantastic, KNN, Kismaayo. wararka ka imaanaya gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in deegaan 3 kiiloomitir u jira degmada Afgooye oo lagu magacaabo Buulalow ay al-shabaab ku gubeen gaari xamuul ah oo siday dhuxul. wararku waxay tilmaamayaan in gaarigaasi uu basbeelay kadib markii al-shabaab ay dab qabadsiiyeen
ma jiraan weli wax wara oo ka soo baxay maamulka degmada Afgooye iyo sidoo kale gobolka Jubbada Hoose oo ay kaga hadlayaan dhacdadan waxaana la sheegay in gaarigaasi xamuulka uu ku soo wajahnaa dhuxusha siday magaalada Muqdisho. markana wararka Shabeellada Dhexe cabsi ayaa laga qabaa roob dabaylo wata oo ka daa qaybo kamid ah gobolka Shabeellada Hoose waa gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxay ka taagan tahay magaalada Jowhar. Bashiir Cali Daahir ayaa warkan faahfaahinaya. dadka ku dhaqan deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa cabsi weyn qaba taasoo ka cabsi qabaan dabaylo iyo roobab iswato oo ay dowladda Soomaaliya wasaaradda gargaarka ay ku baaqday inay ku soo wajahan yihiin gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan hareeraha webiyada dadka degan ee saameyn ku yeelan karto iyo sidoo kale dadka degan agagaarka xeebaha dalka. tuulada Daymasame oo kamid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa haatan sheegay in haatan dabeelihii ay arkeen taasoo ay ka dhalatay dabeelo ka kacay saacadihii la soo dhaafay in ay halkaasi dab uu ka kaco kaasoo guryo ku yaalay tuulada Daymasame ay baabi'iyaan saameyn xoogan ku yeeshaan qoysas halkaasi degan hantidii ay lahaayeen ay ku burburiyeen. mid ka mid ah dadka deegaanka tuulada Daymasame ayaa idaacadda kulmiye u sheegay in arrinkaasi ay jirto xaaladaasina ay soo kordhay oo dabeelo aad u fara badan ee tuulada ka kacday. deegaanka Daymasame walaalo waxaa ka dhacay khasaare aad u xoog badan hawaa ka kacay. maxaa dabka kiciyay? dadkani oo kushiinka raashin lagu karinayay ayaa dabkii meesha ka dambeeyay marka boodkii ku qabsaday. dabeel xoogan socodaya kiciyay oo duufaan camal marka adiga alxamdulillah meeshii dhibaato weyn ka dhacday. agabkii guriga laga dhaqmay iyo hantidii kulli wixii waa burburiya meesha khasaara ka jirta. ilaa waxay gaareen 8 guri camal ay gaareen. wallahi tacan haweenka iyo ragga ayaa iskaashtay biyo soo daldaleen. alxamdulillah siila garabkaani galiyo guul naga. wallahi antida walaalo lama qiyaasi karo antida ma dawr anti oo intaas fandar ku dhaqmaysi ma la qiyaasi karo anti dadku kula hadlaayo wax anti oo yaad sheeganayna uu heri ma jirto. xaaladooda xaalad xalay ku jiraan dadkani waa aad u dhibaataysan. dowladda federaalka ee Soomaaliya in ay wax ka qabtaan xaaladda tuulada Daymasame oo haatan xaalad adag ku jirto xilli fatahaadii webiga Shabeelle dhowr jeer ku soo laabtay wilina ay ku dhex jiraan biyihii webiga Shabeelle haatan dabeelaha ay ugu darsameen oo saameyn ku yeeshay in ay guryahooda ay dab u qabsado. wallahi cabsi weyn qabnaa waana muuqaalkeeda baarakni biriga wax yar ay noo soo bilaawatibo khasaarada hadda wax keedibo dabeesha oo dadkaas saas oo dali oo boodkaas ku qabsaday walwal xoogan ka jiro tuulada dhaqdhaqaaq weyn ka jiro. taas culays weyn ka jiro tuulada marka ay dawladda federaalka iyo midda goboleedka iyo Shabeelle sidoo waa unna laga soo gaaray hay'adaha samafalka dadka ku jira tuulada Daymasame waa barakacsayin. waxaan hortagna ma haysano dabeelaha tuulada ay sheegayso waxaan hortagna ma haysano adabkaas waa unna laga soo gaarsiiyay u baahanahay cabsi weyn oo qabna. Bashiir Cali Daahir Radio Kulmiye Jowhar. halka warka subaxaad kala socotaan waa Radio Kulmiye Muqdisho Soomaaliya. imikana wararka dibadda ku soo dhawaada. kumanaan dibadbaxayaal oo ka soo horjeeda ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa mar kale wadooyinka dib ugu soo laabtay iyagoo dalbanaya inuu iscasilo ra'iisul wasaaraha. dibadbaxayaasha ayaa soo buuxdhaafiyay wadooyinka magaalada Jerusalem xilli uu ra'iisul wasaare Netanyahu wajahayo eedeymo la xiriira dhanka musuqmaasuqa. meelaha qaar waxaa isku dhacay dibadbaxayaasha iyo booliiska oo doonaya inay xakameeyaan dibadbaxayaasha iyadoona dadka dibadbaxyada ka qayb qaatay lagu qiyaasay inay gaadheen ilaa 50,000 oo ruux. ugu dambeyntiina maalin aad u weyn ayay u tahay Koonfur Afrika iyadoo dalkan uu ku jiray mid ka mid ah xayiraadaha ugu adag ee caalamka balse haatan laga khafiifiyay. madaxweyne Ramaphosa waxa uu ammaanay qaabka dawladdiisu ay u wajahday cudurka safmareenka ee COVID-19 waxa uuna muujiyay in rajadu ay wanaagsan tahay. hase ahaatee waxa uu sheegay in dalkiisa uu wajahayo ama uu waji cusub hadda galay. tirada guud ee dhimashada Koonfur Afrika ee cudurkan ayaa gaadhay 11,000
balse tallaabo degdeg ah oo cisbitaalada iyo howlwadeennada dalkaasi ay sameeyeen ayaa looga hortagay faafitaanka cudurkan iyada oo dhaqaalaha dalka koonfur afrikana uu hoos u dhacay. madaxweyne Ramaphosa waxa uu sheegay in malaayiin qof ay cuno la'aan la daristay hadda, wuxuuna madaxweynuhu intaasi ku daray in sanado badan ay qaadan doonto in dib loo soo dhiso dhaqaalaha dalka koonfur afrika oo aad hoos ugu dhacay.